يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وانشر علينا من الستر الجميل ردا وافتح لنا منك فتحا غير منقطع واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا وسهل الصعب من خير الأمور وكن لنا معينا على الطاعة مستندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت الكريم وقد وجهت يا صمد إلى عطائك وجها سئلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا علمت أنك ذو جود وذو كرم هيئ لنا ربنا من أمرنا رشدا وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا علمت أنك ذو جود وذو كرم هيئ لنا ربنا من أمرنا رشدا وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا علمت أنك ذو جود وذو كرم هيئ لنا xalfadan waxay u dhacday yaani waxa xalfadan oo qabsanay iyo gunteeda laba qodob baan ku soo koobaya qodobka koobaad waxa soo gabagaboobay saan ognahay tartan runtii aad u muhiimsanaa oo dhex yaalay fasalada form 4 ee dugsiga Cumar Secondary School runtii tartankaas waxa waday oo juhdigooda ku bixinayay oo u soo dadaaliyay oo u soo wax badan u soo jeeday macallimiin tanaqaliga ah oo runtii inta u sameeyay inuu tartanka uu ku dhamaado si guul ah oo farxad ah oo qof walba isagoo culfiyo uu ku dhamaado alxamdulillah uu noogu dhamaaday ilaahay waa mahadaas kale ka sokoona ayagaas kale oo runtii u soo jeeday wax badan inaan la wadaagno ayaga oo la sheer gareeno xalfada yaani tartanka maanta uu ku saleysan yahay inuu tartanka muhiim u yahay ardayga oo la wadaagana macallimiinta inay sii wadaan tartankaas maadaama uu tartanku uu ardayga muhiim u yahay haddii noqoto akhrintiisii oo akhriskiisa iyo fikirkiisa iyo aqoontiisa oo dhan ee sare u qaayso cilmigana waxa meel sare loo gaaraa oo jaraanjar kale ku geenaysa waa inuu tartan jiro أبوانك الصومالي واصل لها تعليم علم اللي قلت أنا ذاي ترتم بيكو جارين سما وحيري سكوي سما تري ترتم بيكو جارين بي يعني ترتم كحكتوسيا إن توعيلا علمي الوكر نكوا ما هذه رأي باسكاله سكوي كاي كيرين بيشنات كو قروه بدن فرحان وين بنوتة هاي إن عندنا قرص وقيم كشان حفلتان وجدت وجوه الرئيسة ونحفلتان ودقناي waxa weeye waxa la dhib far badan hadii la soo maro dheef baa ka dambaysa waxaan ogsoonayn in noo soo socday waxa kan la yiraahdo tartankii oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka sareeto iskoolka macallimiinta ardayda runtii tartankaas wuxuu ahaa tartan aad u xiiso badan tartan qiimo iyo qaayo badan tartan aad u qurux badan buu ahaa oo u dhaxeeyay guud ahaan iskoolka oo dhanba muhiimadda laga leeyahayna wuxuu ahaa waa in aqoonta ardayda la mideeyay la kubciyo la dhiso si wuxuuna muuqanayaa tartankaas sharaftiisa waa markii la tago imtixaanka fanforada waa tilaabo aad u wanaagsan oo hore loo qaaday waxaan jeclaan lahaana waliba ardayda naga dambeysana sidaas oo kale in mar walba loogu sii qabto ujeedada ugu weyn xafladda ugu qabanay waxa weeyaan maadaama shaqo adag ee macallimiinteena hayeen
inaan dhahno macalimiin waa ku mahadsantihiin dadaalkii dheeraa ay soo gasheen sida wanaagsan oo aad noola dadaalaysaanna waa ku mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa waxa aad nala jeceshihiin oo wanaaga iyo buundada sare in ilaahay subxaanahu wa tacaala na gaarsiiyo ujeeddada labaad oo xafladaan u qabanay waxa weeyaan ardaydii tartamaysay oo inta badan habeenada u soo joodi jidhay oo inta badan xiisadooda ayagoo dhiganayo dul fadhiya inta ka tagaan berrita tartanka yaa lagaa badin u tegaysay iyo ahaa in ayagana ku dhiiragelino inaysan ku niyad jabin runtii fasalka 4D waxaan anagu ahayn fasalka maroodiyaasha fasalka libaaxyada saasay tahay tartanka waxaan ku soo galay niyasami kalsooni buuxdaan ku soo galnay de waxaan waxa loo qabtay wuxuu ahaa ardadu inay kala faa'iido aqoon inay isku dhex gasho isbarato in buugaagta kala akhristo in waxyaalo badan ardadu ka faa'iido ahayd marka macallimiintii noo qabtay oo ugu horeeyo macalinka maamulaha Yaasiin Nuur iyo Ilaax iyo macallin Bashiir macallimiintii tartanka iyo macallin Cabdicasiis macallimiinada su'aalaha soo diyaariyeen macallimiinta tartanka hayo Soomaa marka aad iyo aad ba mahadsantiin dhamaantiin waxaan kusoo gabagabeynayaa xalfadda fasalka 4D dhamaantiin arday master macallimiin dhamaantiin aad ba mahadsantiin adduunyada dadaalayso dabaqyadad muddo daruuraha hilaaciyo haddana darajo doonaysa daa'inkay ku saaciday dahab iyo waaweyne dabcigoodu uu yahay inay dadaalaan aqoonta dadka kaabta oo darajada siisa difaaci dalkeen iyo markii dibadda loo dhoofo diryankiyo rasaastuna markii la isku soo dayo dabku ololo ciidankana dubato oo layso dagaalkuna xumado oo dayrka soo dhaafto daafiya ka daafiyo dhiiggu soo durduranayo aqoon ta dadka kaabta oo darajada siis daciifnimo dhaqaaliyo markii dollarku cuslaado danyartiyo carruurtuna markii la isku soo duubo dib jirkiyo agoontana markay daacadnimo weydo oo dadaalkii wacnada qarra soo gaadho aqoon ta dadkaas kaabta oo darajada siis maasha allah arrin wanaagsan weeye sidoo kale waxaan u hambaliyeynayaa ardadii heerarka wanaagsan noo soo tartantay oo mustooyiga hadda aan joognana soo gaarsiisay dhammaantiin waxaa idin leeyahay hambaliyo dee fasal xula waa wadanahay dhakhaatiirtii baa leenahay abwaanadii baa leenahay culumadii baa leenahay qoraayadii baa leenahay cid naga maqan ma jirto marka waxaan rajeynayaa insha allah in dhammaantiin halkaas horumarkan kasii wadi doono waxaan leeyahay maanta quruxdan iyo qaayahan iyo farxadan iyo rayntan iyo buuqla'aantan waxa keenay yacni isku xirnaanteena oo aan isku xirannahay haddaan isku xirnaan lahayn oo 3 qof ama 4 qof ee keentay fikradda aan uga hari lahayn waxaan aaminsan lahaa inaan noqon lahayn geed aan asal lahayn geedku hadduusan asal lahayn waa badcad yacni waa wax cad oo indhaha aan u fiicnayn marka waxaan leeyahay quruxdan dhalaalkan waxaa noo keenay isku xirnaanshaheena aan isku xirnaano aan gacmaha is haysano mar walbana ahaano far iyo faraanti waxaan idin dardaarmayaa mar walba iyo xilli walba iyo meel walba oo aad joogtaan inaad Allah kaashataan dulqaad iyo samir ku noolaataan noloshu way socotaa dib u akhriyo suuratul anbiya nabiyadii qisaskoodii nabi walba oo ma aragteen intee maanta adduunka qof walba bilyanis baa adduunka joogto intee ee keentay intee imtixaanada natiijo wanaagsan keentay macid waxaa jirto natiijo wanaagsan horumar ku gaartay no ha fiirin natiijo wanaagsan 20 in ka badan taariikhda markaa fiiriso wax yar lagu xusaa balaayiin baa ay keentay maalin walba haddana in yar bay nolosha xustaan waa inta u adkeysatay wadadooda sii qaaday qalbigooda uu wanaagsan yahay garanaya meesha u soconaa wax kasta oo ka hor yimaado aysan celinin sababtoo ah nolosha sideedaba waxay u baahan tahay aqoon iyo cilmi in la raadiyo sababtoo ah cilmiga iyo waxbarashada waa shayga ugu muhiimsan guud ahaan nolosha aadanaha ardayda maanta waxa la yiraahdaa ardada maanta waa hogaamiyaasha berito leh tayada ardayga wanaagsan
waxay saameyn weyn ku leedahay isla markaana jaangoosaa mustaqbalka sidaa darteed yaa arday wanaagsan ah maxaa tayo laga rabaa ardayga wanaagsan tareeyahan ereyga arday waxa lagu qeexi jiray buu yiri qof kasta wax barta si kasta ha ahaatee laakiin waayaha dambe waxa lagu qeexaa qof kasta oo xaadira dugsi معهد جامعة marka waxa loo baahan yahay hadaan nahay arday in aan baalkii aan leenahay hadaf iyo gool hadaba sida ay guusha u gaarno guusha iyo miragal arday kasta wuxuu ku riyoonayaa ama ku haminayaa markasta inuu guul gaaro waxbarashadiisa isagoo ka dheeraanaya inuu ku fashilmo tacliin doonistiisa hadaba sida si aad guusha u gaarto waa in aad marka hore aad leedahay hadaf iyo doonis rasuulkeena subhanahu alayhi salatu wasalaam waxa ku sugnaa xadiis macnihiisu ahaa qofkii dariiq u mara isagoo cilmi raadis ah Allah ayaa u sahla dariiq loo maro jannada marka waa in aan markasta aan ku haminaa sida aan cilmi u raadin lahayn laakiin aan lahayn maanta foorka waa dhameynay aan magaaladeena ka xamaalano arurteena aan xamaalano inaan la oran laakiin markasta aan ku haminano sida aan cilmi u raadin lahayn waxa ayaan daraa qofku inuu arko waxa khaladka ase uu arko uu dareensan yahay ase uu soo ka bedelin marka waxaan ku dhiirigelinayaa maanta waxaad qabatay inaad macallimiintiin maamustaan inaad macallimiintiin qiimaystaan haddaba waxaan leeyahay madaxweynaha dalka ee kaligiis khudbeeyo subax dheeli waa macallinka macallimiintana dhammaanteed aad bay maasan tahay jasaakumullahu khayran jasaa waxaan leeyahay macallimiin halka ka sii wada dalka Soomaaliya burburka Soomaaliya waxyaalaha ugu badan oo badbaadiyay waa macallimiinta qiimahoodana ma soo koobi karo hadalkaygan iyo kan ugu dambeysay dhammaantood waxaan leeyahay aan noqono dad jira aan noqono dad inta badan hor u socda aan noqono dad fahansan meesha ay ka yimaadeen meesha u socdeenaya adduunku waxa wali qofku meesha ka inuu garan waayo meesha u socdana uu garan waayo marka dhammaantood waxaan leeyahay macallimiinta aad waxaan uga codsanayaa oo aad uga codsanayaa in ay ku dadaalaan arintan tartamada ardayda ugu horeysana waa codsatay aniguna waa sii taakiidinaya waana sii taakiidinaya boqolkiiba boqol waxaan leeyahay macallimiin halkiina ka sii wada oo hawsha aad noo haysaan ilaahay ayna ka jasayn kare waxaan moodaa maanta ardaydan inay aqoon isku yimaadeen guul ay ka gaareen marka fadhiyo waxaan leenahay mar kale ayaan suugaynaa inaan kula dabaaldegno inkoo foorka ardayda tomtomatiga bal fadhiyo uu ku yeesho 2 arday iyo 3 arday iyo 4 arday insha Allah ta'ala wadareeyna dhamaanteena inaan arintaas u diyaarsanahay hadaan nahay foor aan rajeynayno inaanu guul ka soo hoyin doono hadii rabbiino halkan waxaa jooga macallimiin aad u qiimo badan oo runtii tartankan qayb weyn ka soo qaatay iskuulkana waa laf dhabar oo salaantooda uu shaqayn karo Umar Samata macallimiin waxaan leenahay ajar iyo xasanada la soo koobi kina Allah ilaahayna ka siiyo runtii waxaan noo fadhiyay waqtigiinii aad u qiimaha badnaa waa soo tiino qof ilaadan waxa ku qoro waxa uu qaalisan waqtiga marka waxaan inii haynaa ciise iyo karaamo aad u far badan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu ka abaal mariyo marka waxaan ka muuqata fasalka isku xirnaan xagga ardada ah waxa weeye wada shaqeyn ardada dhexdooda ah waxa weeye inay waxa allaala wixii ardada fasalka soo wajaha ay si wada jir isula qabanayaan taasna waa wax aad iyo aad loogu farxo haddii aan la isku xirnaanna runtii waxa uma kala soconayaan marka waxaan leenahay horta dadaalka iyo waxa weeye isku xirnaanta fasalka dhexdiisa ay wadaan inay halka ka sii xoojisaan baan rabnaa qof walbana oo waxa weeyaan kaalintiisa uu ka qaadan karo oo ka qaato waxaan la sheegay halkan waxa weeyaan in taytoobaka waxa weeye Puntland ay ka fulayaan runtii fasalku waa ka dhex muuqdaan rag badan oo waxa weeyaan ka soo bixi kara halkaas waxa weeyaan ka soo muuqan kara waxa weeyaan markii la yiraahdo fasalada ee fasalka for iyo percentage ka ugu badan aqoonta xagga waxa weeyaan baa ku jirta marka our teachers, distinguished guests, including the chairman of Confor students who come and other students and members come from the other classes, our class monitor and chairman and different committee of our class, all students, both boys and girls, and greeting every person to his title. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Secondly, we have to maintain our educational because of it is part of our life and it's important for our personal, social and economic development of the nation. It is important to live with happiness, peace and prosperity.
and it empowers minds that will be able to conceive through thoughts and ideas. Education also enables the students to analyze while making life decisions. It is only one that can remove corruption, unemployment, and environmental problems. The life gives various survival challenges for humans, but education guides humans to fight with failures and get success in life. There is a quote which says, education is the most powerful weapon that you can change the world. Lastly, I would like to encourage students to spend their time and energy in concentrating on their studies in order to realize their educational dreams. My dear fellow students, education without struggling will not bear fruit. Therefore, let us join our hands together. We overcome the challenge we are facing as students. Unless we cooperate and work together, we should not achieve holistic success that enlightens and makes every student to attain their educational dreams. Thank you for coming and participating in this colorful occasion of self-production. I wish you better and bright future. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، أريد أن أقدم لكم كلام مختصر عن فضل العلم وأهميته. لقد رفع الله شأن العلم وأهله وبين مكانتهم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى بنبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال له سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وما ذلك إلا لما للعلم من أثر في حياة البشر. فأهل العلم هم الأحياء وسائر الناس أموات. هناك أبيات تخبرنا أيضا عن فضيلة العلم وأهميته، وتقول: فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال والحرام. العلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. ولقد منع الله المساواة بين العالم والجاهل لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن لم يذق مر التعليم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه أربع وفائه. أقول لقولي هذا ولكم استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة وحياة مرتي وناسين حقيقتين ترتكي قول أدقارتين يا بوهاي معلمين تاني يا مامولكا سواء قاسمي حقيقة أبي ومارتي ومهسيني ولا ليال وحنوا اسكا الدنيا ويا الدنيا وحوي مركوطة بسوالية تغيا لكن ما دام أدون كان كنا نحي الدنيا وحاجة يري وحادو دراتا سيدي الله ورقا نورانين إلهي وحوي بغلا سيادة بريد إيمانيا سمارتي توازن ويمادو hadduu hadda qofku soo maartay muxuu ahaye waa dhimanaysaa maartay khalaas haddii faraha ka qaad noloshii iyo adduunyada maartay kharaabeysa. marka sidaa darteed waxaa laga rabaa dhammaanteen muraaqabatullah inay ilaahay qalbiga ku hayno subxaanahu watacaala. haddaad keligaa tahay haddii maartay mujtamacaad ku dhex jirtid markasta muraaqabatullah ilahna qalbiga ku haysid, ilaahay ka baqdid, hadalka ilaahay uga baqdid, فكرك إلهي وبغضد أي فرق إلهي وبغضد معناه وحويان إلهي سبحانه وتعالى وحكفر فكرتي وحكار ربي وذكرتي أنت صار وصو أوريا نعم حكيت عن غرفة الطلب وعطيتين وأسواق وقابسين أديات إنك يوم هدلين الله وأنا سؤول وين الله لدى الجديد وحويان إن halkan baa dhacay qiimeynta la sameeyo iyo dhiirigelin. qodobka dhiirigelinta waxaan leeyahay waqtigu uu socdaa, tartamo badan baa jiro oo ka dhexeeya ardayda gobolka Mudug, boorarka dhexdooda iyo dhammaan ardayda Puntland oo dhan. marka waxaad ku dadaalaysaan insha Allah idinka laftiinu sidii aad uga qayb noqon lahaydeen iskuulka sumcadiisa iyo magaciisa. waxaan kaloo idinku darayaa tartanku halka ma ay hadda idin bilaabanayo. tartanku waa midka Puntland oo dhan u dhaxeeya
imtixaanka centralizedka la sugayo oo waagiyadii ugu dambeysay sida macallimiin badan sheegeen aan maaragtay xoogaa la mooday inaan ku liidanay hadda fasalka foorka iyo fasalada kale foorarka ah iyo kulligoodba hadda waxaa la rabaa halkaa inaan naga geejisaan insha allah oo aan la oran sanadka soo socda haddii aan cumar sanatar maxaa ku dhacay sidii labadii sano saddexdii sano ugu dambeysay dhacday intaas waxaa kaloo kusoo dira ugu dambeyn dadaalka in insha allah la badiyo oo maaragtay ardada intay gudiye iyo howlaha ku mashquuli lahaa dadaalka iyo wax akhriska iyo group in wax loo akhristo iyo in arrimaha maaragtay lagu dadaalo iyo maamuuska la intaba sida quruxda badan u soo abaabuleen iyo sida ay u karaameeyeen macallimiinta oo ay u qadariyeen oo u martiqaadeen intaba waxaan ugu filan fariinta ardada ay noo dhiibtay aan ka soo qaadanayaa labadii arday ugu dambeeyey ardaygii lectureka ingiriiska noo jeediyey iyo ardaydii noo jeedisay lectureka carabiga labadaasaan ku filan waxa ay ka turjumaysaan marka la yidhahdo cumar samatar wuxuu ka turjumahayo labada arday baan ugu filan waxaan aada ugu mahadcelinayaa macallimiinta cumar samatar dhammaantood oo ay ka muuqato mirihii ay beereen inay halkaa ka muuqdaan qof kasta oo wax garanayaan uu arki karo macallin dayb baa nala fadhiya luqadda ingiriishku hadda la akrinayay isagaa kow iyo intaba aan uga mahadcelinaya marka koowaad waxaa kaloo inuu ku filan luqadda carabiga macallimiinta carabiga ilaah waa inoo barakeeyay waa inoo badan yihiin ayaguna waa mahadsan yihiin dhammaantood waxaan in loo mahadceliyay ardayda tartanka ka qayb qaadanaysay hadda waxaas loogu celiyay waxaa ka mid ahayd arday baa intaas juhdi gelinaysay dadaal gelinaysay maalin walba fasalka u tartamaysay sharafta fasalka ilaalinaysay waxaan ayagana u rajeynayaa insha allah iftiin qurux badan inay kasoo dhalaalaan koonfurada puntland insha allah maalin walba shan arday baa imaanaysay shantaa soo noqonaysay oo dhowr fasalkan gashay inay intuba insha allah kasoo muuqan doonaan muraayadaha marka lasoo dhejiyay puntland insha allah baan u rajeynaya iyo kuwo kaloo dhuumanahayaba idinka dhuumanaya weli ina aqoonin kuwii tartamaya kuwo badan oo idinka warqayn baa jiro ayaguna isqarinaya islahayaan ina arkin laakiin midiyooda lisanhaya baa ayaguna meesha ku jira marka insha allah kuwaasna waxaa leeyahay tartankiina insha allah sii wada guushu waa dhowda insha allah wax yar baana ka xigta waxaan rajeynaya insha allah inaan mar labaad kusoo noqono kaalimaha ugu horeeya 10 arday ugu horeysa puntland sanadkii ugu dambeeyay inuu ku badnaa waxaan ku lahayn 7 arday waan filaya inuu ku dambeeyay 2016 meelahaas waan jecel insha allah sanadka kan 2019 in numberka adaan sheego waxa la inuu dhaho macallinka ma wixii waxa yiraahdo ma dandiya marka waxa hore insha allah numberka رشدا وانشر علينا من الستر الجميل ردا وافتح لنا منك فتحا غير منقطع واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا وسهل الصعب من خير الأمور وكن لنا معينا على الطاعة مستندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت الكريم وقد وجهت يا صمد إلى عطائك وجها سئلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا علمت أنك ذو جود وذو كرم هيئ لنا ربنا من أمرنا رشدا وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا علمت أنك ذو جود وذو كرم هيئ لنا ربنا من أمرنا رشدا وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا علمت أنك
ذو كرم هيئ لنا ربنا من أمرنا رشدا وقد مددت يدي بالذل مشتكيا إليك يا خير من هدت إليه يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وانشر علينا من الستر الجميل ردا وافتح لنا منك فتحا غير منقطع واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا وسهل الصعب من خير الأمور وكن لنا معينا على الطاعة مستندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت